Mitt navn er Ingvild Kvalsøsblom, jeg er fra KrF. Og KrF, de 3 viktigste sakene for KrF i denne valgkampen, det er familien først. Vi ønsker at familien skal få valgfrihet. Vi ønsker å gi høyere barnetrygd til familien. Vi ønsker at de skal velge hvor tid de skal ta ut foreldrepermisjon. Og vi ønsker å gi skattelette til de som får flere enn 2 barn. magacaygu waa Ingvild waxaan ka socdaa xisbiga KrF waxaana ka mid ah qodobadeena kuwooda ugu muhiimsan in aan taageero xoogan u muujino familada sidoo kalena aan ku taageerno sidii famil walba ama qoysaska ay u heli lahaayeen lacag ku filan dhanka kalena waxaan ka taageeraynaa oo aan kor u qaadaynaa lacagta ubadka lagu siiyo waalidiinta sidoo kalena waxaan xoojinaynaa sidii waalidiintu ay u heli lahaayeen fasaxa waalidiinta marka ay dhalmadu timaado sidoo kalena waxaa dahena ka mid ah in waalidiinta haysto wixii ka badan 2 caruur canshuurta laga khafiifiyo. Den andre saken er nei til narkotika. Vi mener at narkotika er det som er med å ødelegge samfunnet vårt, og KrF vil ha en helt restriktiv politikk knyttet til narkotika. Dhanka kale waxaynu doonaynaa in aan joojino daroogada iyo isticmaalkeeda taa oo bulshadeena burbur xoogan u geysatay si taa lamida waxaan xooga saaraynaa oo aan dhiirigelinaynaa si weyna u taageeraynaa in qof walba uu yeelan karo shirkad isaga u gaar ah si uu dalka u horumaro. Vi ønsker at folk skal ha større muligheter til å starte sin egen bedrift. Vi heier veldig på gründere. Så sagt, det er de 3 viktigste grunnene for å stemme KrF i dette valget. Tusen takk.